السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلتو وعنا ونكسن waxaan aan gudaha ugu jirnaa barnaamijkii maamada cunugta ka xanuunsan wallahi billahi horta maamadan cunugta aad iyo aad ay ugu xanuunsan tahay waad u jeedaan waa gabar yar waxay u baahan tahay inay la jaan qaado dhalinyaradeeda ciyaalkeeda ila ciyaartay rabtaa waxaa lagu dhahay bahal hadduu ku soo socdo wallahi kama leexan karto xataa wax yar kama leexan karto bahal hadduu ku soo socdo kama leexan karto waxaa lagu dhahay maanta haddii oo xataa uu maskudu duma hata ma ka leexan karto mar hori karto dhammaan muslimiinta jecel wallaahi bilaahi maanta hadda $1 ku darsatid maamadan wallaahi maalin hadda ayna wax ku tiri maanta maalin ayna wax ku tiri haddii aad $1 ku darsatid waxay ku tiri waxaan idin leeyahay videoga hadduu in soo gaado ilaahay dartiisa loo sheer gareeyo ilaahay dartiisa like loo saaro asxaabtiina la wadaago maamadan cunugtan waxay u baahan tahay heer dibadeed ayay u baahan tahay heer dibadeed ayay u baahan tahay oo balajees in raalgelin qurux badan laga soo bixi maadaama intaan la joogto ilaa haddana aan macnaha waxba loo qaban wallaahi bilaahi ninkii oo danqanaay oo beer jilicsan wallaahi wuu danqanaa saxaabay waxaa idin leeyahay videoga hala sii shargareeyo waa tiim loqganaano oo maamadan maanta soo booqatay oo idin leh maamada loo soo gargaara dhammaan waxaan ka leeyahay maamada ka dhalatay cidda ay ka dhalatay maasha allah dhal boqortooy ka dhalatay waxaan idin leeyahay maamadan hala soo garab istaago mid galan muslimiinta meel walba ay joogaan qurba joogta gobolka geeda degmada luuqan qaasitan inay maamadan garab siiyaan lambarada shaashada ay ku qoran yihiin shaashadaas laga soo tixraaco laba lambar dahabna wuu ku qoran yahay EFC samnedna wuu ku qoran yahay lambarka oo maamada lagala xiriirayo oo tafaafiirta iyo barnaamijka maamada ay cunugtan ay tahayna waa kusoo qoraynaa 3 lambar hadduu leeyahay shaashada qiraada shaashadaas laga raasito bismillaah khayray haddana waxaan rabnaa inaan u sii gudgalno maamada xaggeedaan u sii soconaa waxaan rabnaa maamada inaan gudaha u galno barnaamijka maamadana waa idin soo gudbinaynaa please waxaad ka codsanaa videoga like inaa saartaan waan sii share gareysaan si maamadan aan wax ugu qabanno haddana waxaan rabaa inaan maamada usii gudigala hadduu leedmo wuxuu warbixin oo gabadhaas ku saabsan oo tafaasiisan ilaa guriga oo jajabsan burbursan ilaa kushiinka ilaa mashqusha dhammaan waa videoga ku daawan doontiin fadlan waxaad idin leeyahay videoga ilaahay dartiisa loo sheer gareeyo maamadan aan garab siina maamadan aan u danqana qaasitan qurbi joogta ya macaan inta magaalada isla joogno caasimadaha joogaan caasimada muqdisho inta joogto inta tolka ah inta dhammaan muslimiinta maamadan u daqano haddana waxaan rabaa inaa ila daabataan maamadan anaan rabaa inaan gudaha usii galo barnaamijkeeda dhan aan rabaa inaan idinka dharjiyo haddana waxaa idin leeyahay daabasho bismillaahi raxmaani raxiim kuluto wacan oo wanaagsan halkaad naga daawanaysaan waa tiim luuqganaane waxaan rabnaa maanta aan soo booqonay maamooyinka ka tirsan isla degmada luuqganaane degan oo ka xanuunsan gabar 6 jir ah gabadhaas curyaan waaye laakiin mayso ku dhalanin geed ayay ka soo dhacday way jabtay lugtii kabis way weysay markaas labadu lug dhan pressure ay qaadeen xididii dhan waa istaageen waxaan rabnaa inaan barnaamijkaas idin la wadaago haddana waxaan rabaa dhanka maamada xaggeeda rabaa inaan idin geeyo aan sifaan hadda waxaan ku sugnahay isla irida maamada aan ku sugnahay maamadan rabaa inaan idin sii gudbiyo gabadhana idin tuso xaaladda ay ku sugan tahay isla haddadan maamada danta yar wallahi aad u dan yar tahay dan yar oo wallahi laga naxwaaye haddana gudaha sii gal rabnaa hadduu aliidmo marka waxaan rabaa inaan gudaha u sii galo daawasho lam wacan waana idinla socodsiinaa wixii barnaamijka hooyo bal furba hooy yaa joog bismillahi raxmaani raxiim waa ujeediin gabadhii aan la joognaa haddana waxaan rabnaa inaan gabadha warbixinteeda idin soo gudbiyo maamada dhinaceeda ka fadhidaa maamada gabadha ay dhashay waxaan kala rabaa inaan idin tuso gabadha waa tanaa lugteeda gabadha kumaysi dhalanin lugtaas kumaysi dhalanin waa wax ay jabin ah jabitaanka marka kabitaan iyo dheef iyo waxyaalo fara badan maysa helin waxayna u baahan tahay ilaa heer degmo heer gobol ilaa heer macnaha dibadeed inay gabadha loo gaarsiiyo hadduu leedmo insha allah dhammaan inta muslimiinta jecel waxaan ka codsanaynaa in gabadhan si fiican loo soo fiiriyo dhammaan cidda ay gabadha ka dhalatay ilaa intii muslimiin waa u wada dhaxaysaa
hal haba uma go'no macnaha ma dhihino annaga reerka xaggiisa ma dhihino dhammaan muslimiinta dhan waxaan ka codsanaynaa in gabadhaan garab la siiyo hadda waxaa u daran lugtaan ayaa u daran waxaan kala rabnaa inaan gabadha magaceeda iyo soo gudbino irishay magaca suleeqa maxaa lagugu daraa suleeqa cali intee uu kugu daran hadda intee kugu daran oo ku xanuunaa beegta lugtaan waa miya waa u jeediin lugtaana u daran bal haddana waxaa rabaa maamada aan sii weydiiyo xaaladda gabadha maxaa yeelay qofka xanuunka qofka agjooga ayaa ka warqabo maama soo dhawow bal ka waran gabadha xaaladeeda gabadha waa la xanuunsantahay waa muslimiinta dhan waa idin salaamayaan dalal iyo dibadda wixii joogaba marka gabadha waxaa xanuunsan tahay lugaha laga hayaa lug iyo gacanaha waa sii daran labadan jilbood waaye iyo lugtaan ayadku ujeedaan gabadhan aad iyo aad bay u xanuunsan tahay habeenkii ma seexata maalintii waa yar banta saana isku fadhina habeenii maalin saana isku fadhina aniga iyadu meel ma kala aadno marka gabadha aad bay u xanuunsan tahay waxaa rabaa muslimiinta dhan inaan iyo gabadhaas garab qabtaan oo ii daaweeyaan dal iyo dibadda wixii joogaba saasaan rabaa maasha allah waa u jeediin waxay gabadhan ay u baahan tahay hadda gaarisho ayay leedahay lugteeda waxay u baahan tahay lugteeda in farsamooyin aad u fara badan ilaahay horta wax caafiya dadaalkeedaan leenahay waxaa macnaha muslimiinta maxaa ka codsan leed muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay gabadhaan garab qabtaan oo ii daaweeyaan maasha allah gabadha intee u daran hadda xibnaheeda lugaha u daran labada lugood waaye laakiin lugtaan iyo gacantaana hadda usii daran ma socoto saxaradeeda waa la qaadaa qaashaanteeda waa la qaadaa 24 saac haddii garanoo soo socda hataa isma kama carari karto saana u fadhidaa waana 6 jir waqtigii hadda dugsiga dhigan laheeday joogtaa maasha allah habeenkiina waxaa tiri xanuun aad u weyn ay ku haysaa waana labada lug habeenkiina waxaa xanuun labada lugood waaye laakiin lugtaan iyo gacantaana hadda usii daran waqtigii hadda ay soconayso oo dugsiga dhiganaysay kasta ay qabsanaysa ayay joogtaa marka ma socoto habeenii baa saana isku fadhina muslimiinta waxaa ka codsanaya gabadhaas ila qabtaan oo ii daaweeyaan maasha allah waa u jeediin dhammaan muslimiinta diinta jecel dhammaan waxaan ka codsanaynaa gabadhan in caafimaadkeeda lagu soo dadaalo maanta haddii $1 aa usoo dirtid beri ayay wax kuu taraysaa $1 hadda usoo dirtid beri ayay wax kuu taraysaa waxaan rabaa lambarada shaashada ka muuqda ayaa gabadha lagala soo xiriiri doonaa waxaan kale aan codsanaynaa waxaa waaye maanta hadda wax baxsatid oo gabadha masaakiinta wax xaggeeda usoo baxsatid beri ayay wax kuu taraysaa barkan ayay kuu noqonaysaa waa u jeediin lugtaan xaaladda hadda ay ku sugan tahay waa u jeediin gabadhan waa 6 jir waa aminkii iyo hamigeeda uu kor u socdo waaye waa u jeediin wax hadda la dhihi kara ma ahan waa wax oo hadda qof weyn waa la dhihi karana ma ahan waa cunug yar hadda le in wax soo baxay waaye waxaan kala rabaa macnaha waxaan rabaa gabadha inaa ay tuso socod si iyada ay u gurguurinayso iyo xaaladeeda in si socon karto inay socon karin inaa tusaale waa hadduu aleedmo xaaladda kalena waxaan rabaa dhanka suulidana waxaan rabaa inaa tuso hadduu aleedmo asxaabay waa u jeediin gabadha waa taasaa qof oo hadda macnaha hadda soconaya ma ahan saas ay u gurguurinaysa ayaa ka rab muslimiinta waxaan ka codsanaynaa in gabadhan fiiro gaar ah lagu fiiriyo oo garab la siiyo gabadha waa u jeediin hadda lugtaas ayaa u daran lugta waa u jeediin labada lug waa kuwaasa marka dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan ka codsanaynaa in gabadhan fiiro gaarla lagu soo fiiriyo qaasatan qurba joogta gobolkeeda ee degmada luuq aan u dirayaa baaqaas iyo muslimiinta meel walba ay joogaan lambarada shaashada lagala xiriiraya in gabadhan meeshay ku qoran yihiin hadduu alliidmo waxaa kala rabo inaa idin tuso hoy kale inaa idin tuso hadduu alliidmo gabadhii labada lug u daran waa u jeediin waa kuwaana labadan lug u daran lugtaas waa taas marka waxaa waaye labadaas lug habeenka kamaysi jiifato hadduu alliidmo bismillaahi raxmaan